waftigii ka socday dalka Kenya ee isugu jira xubnaha baarlamaanka ee wadankaasi ee dhawaanahan ku marayay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland booqashada ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Saaxil maayirka magaalada Berbera iyo maamulka dekedda Berbera waftigaasi ayaa saaka booqday xarunta dekedda caalamiga ah ee Berbera halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen maareeyaha dekedda Berbera iyo ku xigeenkiisa waxaana ay ka warbixiyeen dekedda Berbera iyo muhiimadda ay leedahay. I'm really very pleased this morning to receive this big delegation. I want to say a little bit about the port of Berbera. This port of Berbera was one of the major anchorages for the last few thousand years. And whoever was here at that time, Somalis came about 400 years ago. Before there was different generations of different ethnic people, coastal people. In the year of 1992, when there was the big famine in Somalia, in Baidawa, and from Mogadishu to Baidawa, where thousands and thousands of people died. The cause was the port of Berbera was shut. There was trouble here at that time. This port was shut for a year or so. That's why the starvation happened. People say if the port of Berbera was open those days, the starvation which happened are killing large population of the Somalis those days would not have happened. That's the actual importance of the port of Berbera. waftiga sharafta leh ee ka yimid dalka Kenya ee xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta hogaaminayaan waxaan ku soo dhaweynaynaa marka hore dekedda Berbera warka bayaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shire ayaa labada wasiirba si baaxad leh uga warramay dekedda Berbera iyo muhiimadda ay leedahay ka tirsan waftigaasi afkeeda ku hadashay ayaa soo dhaweysay dekedda Berbera iyo muhiimadda istiraatiijiyadeed ay leedahay sidoo kalena waftigu waxa ay booqdeen hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera halkaasi oo warbixin ka siiyay injineer Xorre oo ka tirsan hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera. Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka caalamiga ah Home Cable TV Berbera.